marka warbixin baan ka doonaynaa kabacdi su'aalaha xildhibaanadu inuu weydiin doonaan insha Allah waa ku mahadsantihiin inaad soo booqataan isbitaalka oo aad maaragtay raadinaysaan arrintii naxdinta lahayd ka dhacday isbitaalka hortiisa in xaqiiqa raadin iyo xog ururin ku saabsan inaad noogu imaadaan waa ku mahadsantihiin anaga ka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan diyaar u nahay kiiskaas wax ku saabsan baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedba si daahfuran inaan ula wadaagno wax la qariyana ma yaalaan meesha waxay jira in la soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed waa muhiim waxa dhacay wax weyn ay ahaayeen oo qulubteena gilgilay oo aan la aqbali karin bini aadamka qalad waa ka dhacaa isbitaalka Banaadir waan ognahay inta uu soo jiray iyo horumarka uu soo sameeyay iyo dadaalada la geliyay waa laga warhayaa iyo waxa wanaagsan ee hore ay u soo qabteen maamulka isbitaalka oo ay ugu horeysay agaasimaha Fartuun ay ugu horeysay dadaal badan ay isbitaalka soo geliyeen wax qabad fiican way soo qabteen ummadda Soomaaliyeed dhan oo ugu marqaad kacaysa laakiin kiiskaasi qaladaad dhacay oo aan qirayno ayaa jiray kiiska sida aan wareysanay maamulka iyo shaqaalaha camera CCTV-na aan daawanay gabar ayaa xilli dambe oo saqdhaxa salaad subax soo dhowdahay 3:00 AM xilli ay tahay ayaa gabar la keenay bajaaj lagu keenay isbitaalka gabadha markii qolka emergency-ga ay la geliyay waxa uu soo baxay laba gabdhood oo umulsooyin ah oo heeganka qaybta ku jiray ayaa u soo baxay laba gabdhood gabadha gacanta ka qabteen qolka ay geliyeen qolka markii la galay anaga kaamirada waxaan ka aragnay marka 2 daqiiqo kadib qiyaastii in gabar ay qolka ka soo baxday umulsooyinka kamid ah qolka ka soo baxday oo ay tiri wiilkii bajaajka ku keenay wiilashii bajaajka ku keenay ay dhahday walaalayaalow gabadhan isbitaalka kalkaal geeya kadibna gabadha qolka way ka soo baxday wiilasha ayaa waday qolkii emergency-ga ay ka soo baxeen markay ka baxeen banaanka u baxeen kadibna kaamirada wixii inta ka dambeeyay maysan qaban qolka markay ka soo baxeen gabdhihii umulsooyinkana waxay ku laabteen qaybtooda emergency-ga ay ku laabteen ma soo daba kaceen waxay noo sheegeen marka sababta ay u dhaxeen ay u dhaxday gabadha kalkaal geeya in ay ahayd gabadha markay wareysteen inay ku tiri uurkeeda 6 bilood inuu yahay inay is yiraahdeen uur 6 bilood hadda halkan ku dhalisaan canuga wuxuu u baahanayaa dhowr bil ama bil ka badan usbuucyo in dhala la geliyo ayuu u baahanayaa capacity-gaasi ma lihdin inay is dhaxeen ay ku fasireen sababta ay u dhaxeen waxna waa ka badbadis boonboonin iyo dacaayad waxna waa xaqiiqo in la qarto u baahan waxaan qiraynaa qaabka ay u mareen referka oo waxa walina ay leeyihiin inuusan sax ahayn habraaci u deganaa isbitaalkana ay baal mareen qalad weyn meesha ay ku galeen haddii la xawilaayo marka koowaad qofka emergency-ga ah in horta gargaar loo fidiyo xaalad emergency maadaama uu ku jiro laga dhaliyo markaas kadib ambulance loo diyaariyo markaas kadib isbitaalkii ka capacity round isbitaalkan la geeyay lagu hubsado ay ahayd haddii la xawilaayo dhakhtarka shiftiga ku jiray in loogu waca oo lala tashado oo asiga oo go'aamiyay ahayd gabar umulisa ah inay go'aan iska gaarto si fudud oo ay tira walaalayaal isbitaalkaas geeya ay tira waa qalad dhacay oo aan maaragtay dafiraynin oo aan isku xisaabtamayno laakiin waxay ka dabeeyay marka isbitaalka ay ka soo baxday gabadha waxa ka dhacay banaanka qof shaqaalaha isbitaalka kamid ah oo la socday ama ka warhayay ma jirin xilli dadka inta badan dhaqaaqa u yar yahayna way ahayd oo salaad subax soo dhowdahay gabdhihii umulsooyinka gudaha ku qaabilayna way ka soo tageen gudihiina ma soo dhaafin gabdhaha soo banaanka waxa ka dhacay isbitaalka kama warhaynin shaqaalaha isbitaalkana kama warhaynin lacaga loo soo eriyay shaqaalihii yaa fiirsanayo ayadoo banaanku dhalayso fiirsanayo u gargaari waayay intaba sax ma laakiin waxa sax waxa waaye in labadii gabdhood umulsooyinka qaabilay
go-aan qaldan inay qaateen ayagoo dhakhtarkii shiftiga ku jiray aanan u wicin ayagoo ambulance aanan u diyaarinin inay go-aan qaldan qaateen qaladka koowaad waay qaladka labaad oo meesha ku jiray wuxuu ahaa in dhacdada waxay dhacday 16 Oktoobar wasaaradda caafimaadka oo istaalka mas-uulka ahna lama soo report gareynin in markii waxaas ay dhaceen kiiskaas aan soo maray nalama soo dhihin qaladka kale oo meesha ka jira ayuu ahaa waxaan ogeyn anaga wasaaradda ahaan istaalka ventilatorskiisa inay shaqeeyaan neonatal ICU ay shaqeyso ayaan ogeyn warbixin naloma keenin sheegayso cilad inay ka jirto ventilatorska naloma keenin marka qaladaadkaas waa qalamaad oo gudaha ah oo anaga wasaarad ahaan aan ku xisaabtamayno talaabana way qaaday wasaaradda dhammaan maamulka isbitaalka waa la bedelay shaqaalihii habeenkaas joogayna shaqo joojina lagu sameeyay maxay ahayd waana la xisaabtamaya haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa marka dadka ugu faa'iideysanaya mucaaradnimo ugu faa'iideysanaya dawladda inay ceebayaan ugu faa'iideysanaya qaladaad maxay marka horeba ceeb raadis ahaa waxaan ugu digaynaa wax ma aragtay aad ka dhex raadisaan meeshaas ma jirto bini aadamka qalad waa ka dhacaa qaladka dhacayna waa la qirsan yahay dadaana ma aragtay mas'uuliyaddeeda qaatay dad ayaana lala xisaabtamayaa in aysan dhicinna waa laga shaqaynayaa shaqaalaha isbitaalka tababaro joogto ah ay heli doonaan bilooyinka soo socdo horeba way u lahaayeen guidelines ay ku shaqeeyaan iyo SOPs ay ku shaqeeyaan tababarana way heli jireen haddarna kor ayaa loo sii qaadi doonaa si aysan ciladaas mar dambe u dhicin marka intaas waa inta aan ka ognahay aad u mahadsantiin aad baa mahadsantahay wasiir runtii arrintan waxay arrin naxdin leh oo aad noo taabsatay annaka xildhibaan ahaan iyo dumar ahaan iyo hooyo ahaan su-aashayda ugu horeysaan ku bilaabay waxa weeyaan waxaa ka hadashay referral systemka iyo guidelineska intaa la update garaya because adduunyadoo dhan guidelineska iyo systemka referralka markasta update baa lagu sameeyaa markastana waxaa la sameeyaa tababaro ah life ah oo layaabo maanta waxaasa la qabanayaa sidaa loo sameyn lahaa marka exam bila laga dhigtaa keeskana waxay dhacday 3 barkii subaxnimo marka waxay waqti uu dadkuna ku yar yihiin shaqaalaha dhakhtarku culayskana inta badan u badnaado de lama ogaan karo goorta hooyadu imanayso marka waxaan ku weydiin dhinaca referral systemka guidelineska updatekiisa ugu dambeeyay goorma la sameeyay iyo shaqaalaha ka shaqeeya dhakhtarka out of hourska habeenaha noqoto amba weekend ha noqoto waa run isbitaalka horta shaqaale waa joogaan shaqaalo badan oo dawladda u shaqeeyo mushaar qaatan waa joogaan shaqaalo badan oo voluntary ah oo fursad sugayaal ah oo si mutadawacnimo ku shaqeeyna way joogaan capacity-ga isbitaalka aad ay u ballaaran tahay waxaa yimaado dad aad u fara badan soo booqdo dabcan haddii ma aragtay shaqaalaha joogo si fiican loo manage gareeyo waa way ku filan yihiin laakiin culays waa jiraa oo bukaanada soo booqda isbitaalka aad ay u tiro badan yihiin saa darteed shaqaalaha joogo iyo shaqaalaha ku habboonaan lahaa way kala badan yihiin waxaa laga yaabaa shaqaalaha joogo inay boqolaal yihiin shaqaalaha ku habboonaan lahaana kumanaan ay yihiin marka shaqaala intaa ka badanna loo baahan yahay yes waa loo baahan yahay laakiin haddii maxay ahayd si fiican loo manage gareeyo inta hadda joogto way shaqayn karaan marka imka roostada waa ku noqon doontaa structure-ka shaqada emergency-ga khaasatan waa ku noqonaynaa bilooyinka soo socdana isbedel weyn ayaan ku samayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo xagga isbedel structure-ka iyo tababarada iyo wax walba runtii ficilka ka dhacay oo cajalka sida loo daawado horta warbaahintu adduunka waxay ka jirtaa dowr muhiim ay kaga jirtaa warbaahintu sideedaba waxay kamid tahay waxyaabaha kashful xaqiiqa wax loo yaqaano in xaqiiqada ay sheegaan bay horta sideedaba ayay inta badan ayaa laga faa'iidaysan kiiskaasoo dhacay 16 bishii tobnaad shalay ama habeen hore lasoo daayo wax weyn buu runtii dib ka qaaday wasiirku inuu warbixin aad bixisay hadda ka hor maantana aad bixisay khaladkiina la ictiraafada runtii waxay dhahdaan al-i'tiraaf bil khata fadiila annagu ma lihin wasiirow in aad meesha taagantihiin laakiin waxaa muhiim dadka wakiilkeedan ka ah oo idinka idiin jooga oo howlwadanadii inay yihiin howlwadano u cuntama dadka Soomaaliyeed inay si fiican u qaabilaan dadka Soomaaliyeed inay baahidooda ka jawaabaan dadka Soomaaliyeed waliba gaar ahaan hooyada dhallaanka inay intii laga rabay ay mariyaan runtii cajalkaas marka la daawaday
iyo sida dadka Soomaaliyeed uga falceliyeen iyo xanuunka laga dareemo runtii aad buu runtii u weyn gabar Soomaaliyeed oo ugub ah oo meel bannaan taala oo qaawan oo wax garab aan haysan oo liba istaalka banaadir nasaas waa runtii arrinta waxay arrinta si daro aad u fudud runtii oo ceeb wasaaradda iyo annaga dhan iyo bulshada Soomaaliyeed ku dhacday طبعا وزيرك يا غاسي ماشي جوجن لكن مسؤوليات كوري ليه oo ah in kormeerki telefoonki iyo xiriirki iyo joogteynta la sameeyo kali waxa ku filayd hadii ay ahaan dad tababaran qofka inay u qabtaan la seexiyo dhakhtar loogu yeero la fiir inta bas heedo ma garanaysaa aysan marka waxa ka dhacday meesha horta runtii tagrifal baa ka dhacday oo dadkii inaysan dadkiiba garan bahaynba in qofka dumarka iyo xanuunka u dareemi karayo talaabooyinka qaadeen runtii waa talaabooyin dabcan سنة wax lagu saxayo oo in wax la saxo oo dadkii ku jira habeenka waliba gaar ahaan kuwa habeenka shaqeynaya oo meesha taagna oo isugu jiray umulsooyinkii kalkaaliyaasha meesha kala taagna kuwa lacagta qaadahay kuwa meesha jooga dabcan ay intaba ay shaqada la soo jiyo waxay tusinaysaa in talaabo qaadeen su'aashan ku weydiin waxay tahay marka oo ugu dambaysa ama aslee waxay taaban karaysaa marka la fiiriyo dhakhtar marka adigu dhakhtar baa tahay دكتور بات عفاتك agaasimaha guudna waa dhakhtar marka idinku marka dhaqaatiir ah oo aqoonyahana oo indhaheed dadka ah khaladka inuu soo dhicin oo ismar lama soo noqonin maxaa tallaabo ah idinka qorshaysan khaladkan oo kale inuu soo dhicin maxaa idinka qorshaysan ma jira khaladaad kale oo kuwan u dhigma hadda ka hor oo aan la duubin laakiin ribood ahaan aad u hesheen oo hadda ka hor dhacay dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin inay jiraan kiisas tiro badan oo caynkan oo kaleeta ah oo hadda ka hor soo dhacay laakiin kamar duubtada marka aysan jirin idinka ribood caynkaas oo kaleeta ma amaad heshaan in qaladaadka noocan oo kale ay dhicin maxaad ugu hortegaysaan waa su'aal fiican waxa waaye horta qaladka horta wax laga bartaa wax markay dhacaan inta badan waa in cashar laga bartaa laga shaqeeyaa sidii eva mar labaad aysan kusoo noqon lahayn in laga shaqeeyo taas ana ka shaqeynaa diyaar u nahay oo maxay ahayd maamul adag aan u dhiibno meesha la xisaabtanka iyo korjoogtayntana aan xoojino maxay ahayd arrintaas aysan soo laabanin inaan ka shaqeyno ayaan diyaar u nahay qaladaad hore ma dhaceen dabcan hadda waxaan ku jirnaa digital era waa og tahayoo dadkii mobileka marwalba kasoo horeeyo wax yar kasta markay dhacaan mobileka lagula ordayaa dacayad ha noqoto ama waxa ka jiraana dhowr jeer ayadoo maaragtay istaal banaadir wax laga sheegaa inaad aragteen waa laga yaabaa dowladdana si walba mar kaste waxay u nugushahay dacayadda way u nugushahay mar walba marka waxaan rabnaa qaladaad hore oo dhacay waa jiraan laakiin qaladaad buuran oo sida kuwan oo kale ma aha bukaan loo adeegay oo maxay ahayd cabasho keenay oo sidii aan rabay liguma adeegan dhahaya waa la arkay qaladaad iska yaroo noocaas ah laakiin qalad noocaan hadda ka hore nalooma soo report garaynin namana soo gaarin lacagtaas waa meeqa amba sidaa u xisaabisaan culayskeedan dadka haysan danyarka sidaa looga qabtaa marka arrinta lacagtaas aad aan u fahmi waayay in maxay ahayd wax yar oo cost share noo badneen dadka inay ka qaadaan istaalka si loo socodsiiyo golaha wasiirada arrintaa markaan geynay golaha wasiiradu waa laga dooday waxaa la yidhi hooyo masaakiin ah iyo dad barakacayaal ah waxaa laga qaada ma dhihi karnee dowladda wax running cost u qorsheynayso dadkii aan lacag laga qaadan lacag yaro 30,000 ah ayaa loo qorsheeyay isbitaalka bil walba in running cost uu ka dhigto saa darteed wixii markaas ka dambeeyay waxaan amarnay qaybta VIP-da wixii ka soo haray iyo city scanka wixii ka soo haray inaan wax lacag laga qaadi karin ayaan amarnay VIP-da qofkii rabo adeeg oo maaragtay high class rabo qol air condition uu ku jiro qofkii rabo qol maaragtay si gaar ah kaligiis loogu adeega qofkii rabo inuu wax laga qaado istaalka lagu kabo laakiin adeegyada caadiga ah in hooyooyinka caadiga ah maaragtay danta yar iyo dadka barakacayaasha iyo dadka masaakiinta ah inaan wax lacag laga qaadin ayaan amarnay mana laga qaado haddii la ogaado in lacag la weydiiyey dad sida caadiga ah hooyo u dhalayso iyo sida caadiga dad u umaaday
oo qaybta VIP da aan ahayn ama CT scan ka aan ahayn lacag in laga qaaday haddii ay cadaatana waa la xisaabtamaynaa intaana golaha wasiirada ka doodin ay ahayd oo ma aragtay leeyahay isbitaalka saan kuma socon kara ee wax cost share hal qaado annaga wasaaradii ahana markaas u ogolaanay markii arrinta golaha wasiir aan geynay ee laga dooday la discuss gareeyay ayaa waxaa la yiri warsaan suuragal ma ahane wax baan u qorsheynaynaa dadka laga dhaafo culayska maalintii dawladda budgetka la ansixiyay January 2025 la ansixiyay budgetka lagu darayna waxaanu amarnay in la joojiyo marka arrinta wax hore ahayd wax hadda ama ah ma intaas ma xaqiijinaya maadaama security-gu dhakhtarka ka xisaabsan yahay tababar ma la siiyaa because waxaanu marmar ma aha ina medical tahay waa bani aadnimo ahayd iyo naxariis ina qofka la tuso marka shaqaalahan albaabka ka hor shaqeynaya dhakhtarka ka xisaab tababar ma la siiyaa waxa u soo caawinaysa gudaha loogu soo celin waayay su'aalahaas waa la weydiiyay marka maxay ahayd wuxuu yiri nimanka la socday dadka la socday ayaan ka shakiyo dhahay marka qoriga inay qaataan ugu dhagaan aba ka baqiyo dhahay marka waan ka cabsaday uu yiri uma dhaqaaqin marka waa qalad aydan naftikeeda oo aan saxi doono security-ga insha Allah ta'ala tababarra loo sameeyna haduu Ilaahay raad wiilasha medical-ku waxay noo sheegeen NCU-ga neonatal intensive care-ka inay cilad ka jirto ventilator-ka waxa sababteed ma qaabili karaan ilmaha yar ee waqtigiisa ka horeeyay 6 bilood ama 7 bilood ku dhashay marka anu su'aasha gooraysan weydiiyay waxa ahayd wasiirku arinta muu ogyahay agaasimaha guud ma ogtahay marka waxay ahayn ciladu muddo dheer bay jirtay oo waa wax la isla ogyahay marka taas ana ka yar yaabo waxaan doonayaa bal ina qaybta intensive care neonatal intensive care-ka inay shaqeynayso haddii cilad ka jirtona maxaa ka qaban doontaan gudoomiye aad u mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay ee ku saabsan ventilationka iyo neonatal ICU da isbitaalka neonatal ICU da waa shaqeysaa sidoo kalena ventilation uu leeyahay ventilators badan ayaa yaallo marka taa cilad kama jirto waxa isbitaalka uusan haysanina waxay tahay waxa la yiraahdaa mechanical ventilation oo u baahan dhakhtar pulmonologist oo ku takhasusay oo sameyn kara tubo gudaha gelin kara iyo lung surfactant waxa la yiraahdo oo qaali ah oo isbitaalka inta badan uusan soo iibsan karin saadarteed neonatal ICU isbitaalkeena waxay qaabishaa ilmaha 30 usbuuc iyo wixii ka weyn ku dhasho ay qaabishaa ilmaha laakiin 30 usbuuc iyo wixii ka yar ah isbitaalada leh mechanical ventilation ka sameyn karo lung surfactant laga heli karo ayay u diraan anugani marka maadaama hooyada ay sheegtay 6 bilood inay tahay darteeda marka go'aanka ah isbitaal hebel gay ay horta gabadha u qaadatay go'aanka qaldan habraaci transferka aan waafaqsaneen gabadha wax u qaadatay waxa hooyada ayaa waxay ku tiri 6 bilood ayaan lahay marka waxay is dhahan wixii 30 usbuuc ka yar neonatal ICU-da ma qaabili kartay go'aanka saas horta u qaadatay gabadha istaalo badan ilmo badan markii la geeyo istaalada kale markii la geeyo oo lacagta ay xamil waayaan dhowr usbuuc kadib lagu soo celiyaa istaalkeena oo haddaba jiifo neonatal ICU-da marka ugartaa $100 maalintii ayaa ku baxday istaalada private-ka halkaana waa free marka saa darteeda markii istaalo kale la geeyo markii 2 usbuuc 3 usbuuc ay soo joogaan ayaa lagu soo celiyaa halkaan lagu soo celiyaa marka ventilationka ventilators waa yaalaan istaalka neonatal ICU uu leeyahay laakiin waxa ka maqana waxay tahay intubationka iyo mechanical ventilationka iyo lung surfactantiska ilmaha 30 usbuuc ka yar ay u baahan yihiin ayaana la sameyn karin halkaan taasna mustaqbalka in ayadana lagu talaabsado waa rajaynayna haduu Ilaahay yiraahdo su-aasha kale intensive care ku xiran qorshihiina miisaaniyadda 2026 may ku jiri doontaa ina mashruuca la sii eego mise waxay noqon doontaa culaysyo ku xiran budgetka mise ina specialist heshaan dalkan horta muu ka jira ama la heli karaa pulmonologist special ah oo caruurta yar yar ku takhasusay kuwa waa takhasus aad specialized ah amasta gudoomiye horta wasaaradda dadaal bay sameysay oo 2 sano la soo dhaafay waxaa la shaqaaleeyay 40 specialist ayaa la shaqaaleeyay oo aan hore u jiri jirin oo mashaariicda wasaaradda laga shaqaaleeyay oo contractiga hadda uu ka dhamaanayo December kuma jirin laakiin pulmonologist waxaa ku jiray anesthesiologist iyo emergency iyo hematologist iyo takhasus noocaas ay ahaayeen
إن شاء الله تعالى هدرنا ددال وقلينا سيد تخصصات دلك ويكجران ضد بالمنورجست دلك ويجوغان لكن إسبتال كان أيان ولي أود ويلانين إنه شقاليو ضد تخصص نوع عصله أيضا وكنت لقلينا سيد أن أهل لهن هدو إلهي يراد إن بجت كأتك هذا الشيء هذا بوال أنسحي ميزانية لو كنت لحظة وقالها وزير ويساء أنسحيان برلمان كان ولا كانت دونا وإذا إيمان دونتا إن wax budget oo joogto ah oo hadda wasaaradda caafimaadka ugu jiro ma lahan marka waxaan u malaynayaa marka in fursado kale meel kale aan ka raadin moogiye budgetka dawladda xageeda in hadda fursad aysan ka jirin waa qiyaasaya qudara on tala soo jeedin kale in wasaaraddu way leedahay risk register in risk register lagu daro on in taas wax isha lagu hayn doono hatta imka hada la sameyn karo la qaban karin ba in future kan ku jirto qorshaha mahadsanid maamulka qayb wuxuu leeyahay in la yiraahdo medical director iyo qayb shaqaalaha loogu talagalay oo ah qaybtii madaxa shaqaalaha labadaba waxay qaabilsan marka haddii xirfadle caafimaad uu yahay ama dhakhtar ama kalkaaliye inuu u qaybiyo shaqada isbitaalka intaan ognahay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal iyo umulusooyin hawsha gudan karaa joogo waa la isweydiin karaa su-aasha ah numberka ma ku filan yahay oo numberkii la rabay ma jooga laakiin waxaa waaye waxaa joogo howlwadeenno hadda hawsha taalo qaban kara haddii si wanaagsan loo maamulo marka cillad weyn kuma ogeyn anaga arrintaas oo hadda habeenkii waxaan dhacayna laba dhakhtarna shiftigii ku qorneeda la yiri 3 umulusane hawsha heegankay ku jirtay marka waxaan rabnaa marka hadda inaan kor joogtay in waxa waaye xaqiijinane in shiftiida xilligaas oo kaleeta ah in dhakhaatiir iyo umulusooyin iyo kalkaaliyaal ku filan inay joogaan dhammaan isbitaalada xilliga heeganka mahadsantiin iyo inay haystaan good leadership inay haystaan adiya wasiirow maadaama haweeneyda Soomaaliyeed ee meesha koor umulusay isbitaalka hortiisa oo runtii dadka Soomaaliyeed qulubtooda galgalay gudihii dibadaba ilaa haddana aydan wax oo ka haynin waxaan rabaa arrinta ayada in wasaaraddu iska xil saarto in qofkii adbaaq dirto la raadiyo la keeno wixii loo qaban karo oo gacan la siin karana in la siiyo caafimaadkeeda iyo daryeelkeeda iyo raaligelinteeda intaba taasi waxay ka go'daa waxaan rabaa in wasaaraddu ay waajibkaas qaadato si dadka Soomaaliyeed ay u dareemaan in wasaaraddii ay ugu maqan tahay shaqadii la rabay haddii qofkii aan laga daba tegin oo aan fariin loo dirin oo la raadiyo waa la heli karaa sanfil haddii hadda la raadiyo telefoonkooda waa la heli karayaa marka in la raadiyo gabadhaas iyada caafimaad loo fidiyo gargaar loo fidiyo wasaaradda iyo xukuumaddu inay waajibkaas qaato ayaan guddigu ayuu soo jeedinaya aad baad mahadsantahay xildhibaane waa run gabadha wax xiriir ah kama hayno laakiin dhowr jiha ayaan u dirnay inay raadiyaan oo maaragtay ama ha noqdaana bulshada qaybo ka mid ah ama wasaaradda iyo isbitaalka qaybo ka mid ah ha noqdaano in la raadiyo ayaan dhowr jiha u dirnay halkaana baaq waxaan ugu dirayaa haddii ay na maqlayaan dadkaas ehelkeeda ah ama ayadaba inay nala soo xiriiraan oo ugu baaqayaa ciddii xog ka haysana inay nagu soo xirto waan ugu baaqayaa laakiin ilaa hadda wax nala soo xiriiray ma leh wax contact oo aan ka haynana ma jirto marka waa baadigoobaynaa wasiir waad mahadsan tahay inaad mashquul ku tihiin gabadha in la raadiyo ama adda u dirteen waa ku mahadsan tihiin haddii la soo helo dabcan adduunka wada telefoon laba waay waa la soo heli karaya marka gabadha la soo helo oo la keeno maxaa idin qorshaan maxaa talagal ugu talagashaan gabadhaas in gacan la siiyo ama lagu caawiyo wax talagal ma jiro nooca ku saabsan xildhibaan nadiif waa mahadsan tahay gabadha aan baaq halkan ugu dirnay in lagu soo xiro ama haddayna maqlaan ay nala soo xiriiraan haddii la helo waxaan diyaar u nahay in loo cudur daarto raaligelin la siiyo la daweeyo caafimaadkeeda la hubiyo ayaan diyaar u nahay wixii kale oo lala qaban karana lala qabto